guddida abaaraha ee heer degmo ee degmada Garadaga ayaa deeq biyaha ka qaybiyay xaafadaha kala duwan ee degmada Garadaga. Deeqdan biyaha ah oo ay ku tabaruceen wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland ee RDA oo kaashanaysa guddida abaaraha ee heer degmo, kuwaasi oo gaadiidkii booyadaha ahaa ee wadada Cerigabo iyo Burco ka shaqaynayay ay ugu gurmadeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaanada wadadu ka socoto ku sugan. Gudoomiyaha guddida abaaraha ee heer degmo Cabdilaahi Salebaan Boobe iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada Mustafa Salebaan Cali oo labadooduba ka mid ah xubnaha golaha deegaanka Garadaga iyo xubno kale oo guddida abaaraha Garadaga ka mid ah ayaa warbaahinta kula hadlay goobaha kala duwan ee deeqaha biyahani la gaarsiiyay, sidoo kalena baaqyo kala duwan oo ka turjumaya abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta Garadaga iyo deegaanadeeda u diray xukuumadda Somaliland. halkan aan taaganahay waxa weeye waa degmada Garadag, waxaanu ku qaybinaynaa biyo deeq biya oo runtii biyahaas oo ay naga caawiyeen qoladeeda gurmadka abaaraha nagu soo wareejiyeen RDA. waxaan u mahad celinaynaa hay'adda guud gacanta ku haysa mashruucan wadada ee gobolka Sanaag oo runtii noogu deeqday maareeyaha guud ee wadooyinka Somaliland, maareeyaha ku-xigeenka, maareeyaha mashruuca Engineer Bulaale. waxaan uga mahad celinaynaa deeqda biyaha ay dadka tabaalaysan ee abaaruhu ay saameeyeen ay gurmadkii kaga qayb qaateen oo booyadaha oo ku jira hadeer oo dhaaminaya. waxaanu leenahay jazakallah, waana wax leedin og yahay, deegaankuna inuu og yahay, ka degmada Garadaga ahaana aanu inuu ognahay, ka guddi ahaana aanu inuu ognahay. waxaanu leenahay ku daydaan cid kasta oo kale oo ka shaqaynaysa qarankan inay ku dayato, oo maadaama xaalada abaareed lagu jiro in hawlaha kale dib loo dhigo oo sida ay RDA khamiistii iyo jimcihii uga faa'iideynayaan in looga faa'iideeyo. deeqdan biyaha waxaa soo gaarsiisay wakaaladda RDA horumarinta wadooyinka oo ugu horeeyay Engineer Bulaale, Maxamed Cabdi Qorsheel. aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin biyaha ay garteen inay dadka jecesana u baahan xaaladda abaareed haysato ay kaga qayb qaataan ay soo gaarsiiyeen. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. marka labaad waxaan leeyahay halkan aan uga faa'iideysanayaa in yar aan uga dirayaa fariin xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo ay ugu horeeyaan wasiirka biyaha. sida la socotaan xaaladda dalku galay waa xaalad abaareed. waxaa halkaa ku yaala degmadan Garadaga riigaasi muddo imika 10 sano ku dhaw uu fadhiyay. waxaanu guddida abaaraha ee heer qaran iyo wasiirka baanu ka codsanaynaa riigaas oo horena aanu gobolkana ugu sheegnay oo warkiisa riboodkiisa gobolka gaadhay wasaaradana gaadhay. sida ugu dhaqsaha badan waxaanu ka codsanaynaa guddida abaaraha heer qaran, maadaama sidii lagu dhawaaqay ay ku jirto qorshaha in ceelasha biyaha wixii fadhiyana la kiciyo dadkana ceelal cusub la gaarsiiyo. sida aawadeed waxaanu codsanaynaa oo wasaaradda biyaha horumarinta biyaha iyo guddida abaaraha heer qaran ba ka codsanaynaa riigaas wax badan buu ka tari doonaa dhawaanshaha iyo masaafada biyaha hadeer loo doono. waxaan maanta saaka oo ay jimco tahay 21 bisha koobaad 2022 aan ku shubaynaa biyo ay ku deeqeen tiimka wakaaladda biyaha ee mashruuca wadada horumarinta wadooyinka Somaliland, gaar ahaan wadada Cerigabo iyo Burco isku xidha. maareeyaha aad baan uga mahad celinaynaa maareeyaha iyo wasiirka iyo dhammaan saacidii ka shaqaysayba biyaha ay ugu deeqeen dadka masaakiinta ah ee aan dhaansan karayn. 3 gaari ayaa hadda soo gaaray oo aanu shubaynaa Garadaga barakacayaasheeda oo ah biyihii ay u keeneen tiimka wadada ee annagoo ah guddida gurmadka abaaraha ee degmada Garadaga. waxaanu halkan ku qaybinaynaa biyo ay dadka barakacayaasha ku caawiyeen hay'adda wadooyinka RDA. marka hay'adda wadooyinka RDA waanu mahadnaqaynaa. waxaanu mahadnaqaynaa maareeyaha guud, waxaanu mahadnaqaynaa wasiirka horumarinta jidadka, waxaanu mahadnaqaynaa maareeyaha sayrkan Burco Cerigabo.
dhanka kale waxay isla saaka qaybiyeen guddida abaaraha ee heer degmo deeq biyo ah oo uu soo bixiyey xogayaha guud ee golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle. mas-uuliyiinta guddida abaaraha ee heer degmo oo ka dareen celiyey deeqdan biyaha ah ayaa uga mahadnaqay xogayaha guud ee golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle, iyagoo sidoo kalena fariin u diray mas-uuliyiinta kala duwan ee deegaankan ka soo jeeda. maanta waxaan halkan soo gaarsiinay oo ka mid ah degmada Garadag dhexdeeda barakayaashii ku noolaa deeq ka mid ah oo deeq biyoodu bixiyey xogayaha guud ee golaha baarlamaanka Cabdirasaaq Siciid Ayaanle. deeqdaasoo dadkii u baahnaa ee xaaladda abaareed ee biyo-la'aantu ay saamaysay aanu soo gaarsiinay. waxaanu leenahay aad iyo aad ugu mahadsan yahay xogayuhu isaga iyo inta la midkaaba ee bulshadii Garadag ama bulshadii deegaanka ka soo jeeday oo qofkii ugu horreeyey hadday qurba joog tahay, hadday siyaasiyiin tahay iyo hadday bulsho kala tahay oo deegaanka ka soo jeedaba qofkii ugu horreeyey xaaladda biyo-la'aaneed ee la soo diristay dadkiisa ka soo direen celiyey ka soo jawaaba ee degmada u dhashay weeye. aad iyo aad ugu mahadsan yahay. waxaanu leenahay bulshooyinka kale ee degmada ka soo jeeda ama u dhalatay oo ay ugu horreeyaan siyaasiyiintu oo ay kow ku yihiin qoladii weliba la doortay ee degmada laga doortay 6 bilood ka hor oo aan bulshadeedu kuna soo noqon dareen ku soo celin. waxaanu leenahay aad iyo aad xogayo ugu mahadsan yahay. iyagana daliil mayna maanta waxaanu leenahay sida xogayihii guud ee wakiiladu uga soo qayb qaatay dadka dareenkiisina uu uga soo qayb qaatay xaaladda biyo-la'aaneed idinkuna ka soo qayb qaatay. waxaanu halkan ku qaybinaynaa deeq biyood oo noo soo dhashay xogayaha guud ee golaha wakiilada oo ahayd 2 booydood oo biyaa xogayaha waxaan leenahay jazaakalla xogayuhu wuxuu la diran yahay dadkiisa. waxaan kula sheegaynaa qurba joogta iyo qurba joogtaba inay dadka tabaaraysan ee abaaru ay saameeyeen ee biyo-la'aantu ay kow ka tahay in laga soo qayb qaato oo wixii qof waliba uu karaankiisa wuxuu baxsadaa wuxuu maanta baxsado berri buu helayaa. waxaan siyaasiyiinta kale iyo qurba joog iyo qurba joog baan ugu baaqayaa inay ka soo qayb qaataan abaaraha oo runtii ay dawladdiina wado bulshadana waxaanu leenahay ka qayb qaata. saaqsina yaalla xogayaha guud ee baarlamaanka aad buu mahadsan yahay oo 2 booydood soo gaarsiiyey deegaanka Garadag. booyad xaafad ka mid ah xaafadaha Garadag baan booyad hadda ku shubaynaa. booyad horena waxaan ku soo shubnay shalay magaalada Taygara kaamkeeda. labada booydood aad iyo aad buu mahadsan yahay isagoo xogayuhu jazaakalla